الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي بقى مهد اسكاله سبحانه وتعالى dhammaan rusushiisii iyo anbiyadiisii naxariis iyo nabadgelyo ayaan ilaahay u weydiinaynaa, gaar ahaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. intaa kadib kusoo dhawaada barnaamijkii aakhiru samaan talks. lecturekii ugu dambeeyey waxaynu ka soo sheekeennay xidhiirka ka dhexeeya dadka aaminsan diinta yuhuudda iyo kuwa aaminsan diinta hindiyaanka ee hinduismka loo yaqaan. labadaa dal waxaan ka sheekeynay waxyaalo badan oo iskaga mid yihiin dhinaca aaminka. sidoo kale waxaynu sheegnay intaa uun inayna ku koobnayne 1400 sano ka hor ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inuu ku sheegay xidhiirka noocaasa in uu yahay mid aynu arki doonno. cadaawadda ay soo saari doonaan ee islaamka ay tusi doonaanna mid quman inuuna hayn waa inoo sii sheegay qur-aanku. isla lectureka waxaan kaga jawaabayay dhowr su-aalood oo isbaahaysiga jinka iyo magaranaysa reer galbeedka ka hadlayey, sidoo kale yaajuuj iyo maajuuj ka hadlayey. waan dib baan uga saaray clipka intii ku saabsanayd magaranaysaay jawaabahaas. waxaan go-aansaday maadaamu labada topic ay kala duwanaayeen technical errorna uu ku jiray in insha allahu tacaala lecture gaara waxyaalaha dib uga jawaabayno aan mar ilaahay markuu waqti ii siiyo aan si gaara u dul istaago insha allahu tacaala. lectureka haddaba maanta aynu dul istaagayna waxa weeye shayga loo yaqaano race, nationality, ethnicity ama qabiil. soomaalidu ilaa jufooyin iyo magaranaysaa meelahaasaba usii kala baxbaxayaan. arrintaa baynu dul istaagaynaa insha allahu tacaala. waxaynanu eegaynaa aragtida qur-aanku ka qabo waxyaalahaas. intaanan intaa u galin waxaan jecelahay inaan maanta yar dul istaago qur-aankeena kariimka. waxyaalo badan beri hore oo magaranaysaa 1400 sano ayuu ilaahay noo sheegay. mid maaha faana, mararka qaarkood waa sadness oo dadkeenna intaas oo dhan ogaa waxyaalo badan oo waxaliya waxaynu ka qabannay ama aynu uga diyaar garownay ama aynu ka faa'iidaysanay. marka dhinacaan laga eego sadness badan baa kuu soo baxay moogta. hase noqotee waxyaalahan badanka idinka sheekeynay een halkan ka soo jeedinay qaarkood waa iiga aqoon badantii, qaarkood ilaa maalintaa dhalateen baad sii maqli jirteen oo waxaad taqaaniin. u malayn maayo waxyaalo badan oo cusub inaan halkan ka soo jeedinay, laakiinse waxaan oga waxyaalaha aa ogeedeen dhinacii aa ka arkaysay in badan brograamadan aan soo jeedinayo aa ka duwan yihiin. aragtidii aa ka qabtay isla shaygii uun aragti ka duwan iyo dhinac ka duwan, xagal ka duwan. insha allahu tacaala in aad ku eegto oynu ku eegno si haddadeed waxyaalihii awalba ay iska ogeyd haddana hortaada iyagoo yaalla aad garan la-ayd ayna dib dambe kuugu dhicin taasiyo mar dambe markay waxyaalahaasi ku soo maraan ama aad aragto ay kuu kala caddaadaan. daah uuna kaa saarmin, shaki uuna kaa galin. intaasaan insha allahu tacaala dadaalka ma garanaysaay brograamkan iyo barnaamijkanba uu daaran yahay.
wuxuu kaluu daaran yahay inaynu garaadkeenna isticmaalno waxyaalo badan saan horeba u sheegay aada iyo aad baad ma garanaysaa ay khabiirro ugu tihiin dad badan oo ma garanaysaa arrintan aqoon aada u fara badan ilaahay u siiyey baa jirta subxaana wa tacaala laakiinse waxaan dhiiri gelinayaa dadkaas in uu ilaahayna kartidii uu siiyey ay dadka wakhtigan lagu jiro aad baa loogu baahan yahay arrimaha xasaasiga ah ee jira inayna ka gabanoo ay shaashadaha hor yimaadaan arrimahanna ay ka hadlaan intaas waa intaa waxaynu bal ka sheekeynaynaa markaa intaana tobigaa gelin inaan arrimo badan yartaa taabtaan jecelahay arrinta ugu weynayn inaad taabtaan jecelahay wax weeye qur-aankeennu waxau ka tegey oo haba yaraatee uuna inoo sii sheegin ama uuna sharaxin oo mugdi ku jiraayey ma jiro ilaahi subxaana wa tacaala waxaynu leeyahay qur-aanka waxaanu u soo dejinnay tabyaanan likulli shay si wax kaste aanu u caddayno markaa wax kaste all things hadday tahay ma garanaysay jin hadday tahay ma garanaysaay gaalo hadday tahay kuwa dhulka hoostood ku jira hadday tahay kuwa buuro qodaya hadday tahay kuwa dhulka dul socda hadday tahay kuwo kale wax walba siyaasadda caalamka ka jirta wax wal oo caalamka ka jira kana jiri doona ilaa intuu dhammaanayo ilaa maalinta la soo baxayo ilaa maalinta dadka la xisaabinayo ilaa marka la xisaabiyo halka la kala tegayo wax au qur-aanku ka tegay haba yaraatee ma jirto waxaasoo dhanna waxaan u soo dejinnay caalamka dhici doona ilaa iyo yowmulbaxth ilaa iyo maalinta ma garanaysaa xisaabta la taagan yahay ilaa jannooyinka marka la galo ee cadaabta la galo sheekooyinkii ka dhacayay sida laysku waraysan doono wax walba ilaahay waa sharaxay subxaana wa tacaala iyadoo saa tahay qur-aanka markuu ilaahay ka hadlayay haddana wuxuu yidhi haddii badahoo dhan laga dhiga khad geed oo dhanna laga dhiga qalin macnaha qur-aanka koobi kari maysaan kelmadda ilaahay uu ka hadlayey kelmadda ilaahay uu ka hadlayey waa kelmaddee kelmadda ilaahay waa kelmaddee maxaad u taqaanaa kelmadda ilaahay kelmadda ilaahay waa kitaabka ma kelmad ilaahay oonan kitaabka ahayn ayaad garan halkeed ku sheegi kelmadda ilaahay waa kitaabka ilaahay kitaabkiisa markuu ka hadlayay markaa wuxuu yidhi haddii badaha oo dhan khad laga dhigo geed oo dhan qalin laga dhigo kelmadaha qur-aankaa ku jiraayey macnihiisa dhammayn maysaan qalimaantaa indinka dhammaan khadadka unbaa dhammaan markaa haddii la idhaahdo 8 bilyan ee caalamka ku nool qalin iyo buug loo dhiibo oo qur-aanka fasira la idhaahdo macneeya mid ay dhammayn karaan maaha cid maanta caalamka nool ku dhintay iyo ku jooga nin sheegan kara qur-aanka macnihiisii anaa dhammaystiray qur-aanka ilaahay baa u gafayaa ma jiro ninna ma sheegan karo ninna ma dhammayn karo iyadoo saa tahay qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed nebigeennii xabiibullah waxaa lagu yidhi nebi maxamedow aaway adiga mucjisooyinkaagi nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi qur-aankuu farta ku fiiqay wuxuu yidhi mucjisadaydii wataa waa qur-aanka qur-aankuu farta ku fiiqay nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam nebi maxamed ushii nebi muuse looma soo dhiibin
dabiishii nebi saleymaan umay adeegeyn shayga ugu mucjisada weyn leh ee nebi maxamed ifkan la yimiday ee ilaa maanta jirta ee dhimashadiisii aan raacin ee awoodda gaarkaa ilaahay siiyey ee dadka qaarkood jannada ilaa halka ugu sarraysa geynaysa ee dadka qaarkood ma garanaysa ee cadaabta ku ridaya ee hadli doona ee awoodda intaa leg ilaahay siiyey ee madaxa bannaan waa qur-aankaa ilaahay markuu ka hadlayna waa ka yidhi mar saddexaad baan ku celinayaa qur-aanka kelmadihiisu haddaan badahoo dhan khad ka dhigno geedahoo dhanna aan qalin ka dhigno macnihiisa soo koobi kari maysaan shaqo aada u ballaadhan baa halkaa ku jirta saasuu ilaahay u lahaa qur-aanka waxaan nuu soo dejinnay tabyaanan likulli shay si wax kaste han ugu caddayno qur-aanka haddaba fahankiisu waa noocee qur-aanka fahankiisu af carabigaa kaleefar ku ah oon aqaanaa qur-aanka ku macnayn kara maysid no you will be wrong you will be very 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 wrong saa doonto carabiga u baro waa baarti ka mid a inaad daraasad ku samayso ood barato laakiin qur-aanka carabigan xariif ku ah macnihiisa oo keliya ku koobi kari maysid sababtoo ah qur-aanka nin uu ilaahay fahansiiyey oo uu garadsiiyey oo uu xikmaddana siiyey lagu fahmayo oo nuur uu siiyey unbaa macnayn kara nuurkaasina xikmaddaasna Oxford University ma bixiso Cambridge University ma bixiso Harvard University ma bixiso jaamacatul camuud ma bixiso jaamacatul ashar ma bixiso ilaahay wuxuu siiyaa man yashaa min cibaadihi cidda uu doono ee addoomihiisuu siiyaa intaa markaynu isla garanayno nuurka ilaah iyo qur-aanka fahankiisii ilaahay qur-aanku markaa ku sheegay the first steps aad qaadanaysid si aad qur-aanka u fahanto ilaahay qur-aanku ku sheegay ilaahay wuxuu yidhi qur-aanka annagaa soo ururinay markaan soo ururinay sidaan noo akhrinay u akhri wadaa qara'naahu lqur'aana fattabic qur'aana saan annagu u akhrinay u akhri kadib markaad akhrisanay ilaahay markaa wuxuu yidhi annaga ayaa bayaan garaynayna oo caddaynayna oo kuu sheegayna mar ku fahansiinayna no Oxford University kuma fahansiinayso no ani kuma fahansiin karo haddiina ilaahay nuurkii aad ku fahmaysay una ku siin kuma fahansiin karo we are all here waa tilmaam un markaa nuurkaa ilaahay noqdo siiyo subxaana wa tacaala nuurkaasi stock marketada lagama soo helo ma soo iibsan kartid the first stepna waxay ku timaadaa qur-aankoo la akhriyo markaad qur-aanka akhrido eed maalin walba akhrido ee deristo ilaahay markaa aayar buu ku darsanaya qur-aanku maaha la dhegayste qur-aanka gebiga kelmadda macnaheega dhanba waa la akhriya la dhegaysta maaha markaa waa inaan dib ugu noqonno naftayda iyo naftiinaba qur-aanku cajalad aad soo qaadato aad baabuurka ku ridato guriga aad ka shida uun maaha andaa set end of the story wax kale aad ku fali weydo qur-aanku la dhegaysta maaha qur-aanku waa la akhriye sida ma garanaysahay joornaalada aan metrooga iyo tiyuubka ugu akhrisanayno ee basaska ugu akhrisanayno waa inaad qur-aanka every time aad u akhrido noofalladan maalin walba la akhriya bestseller baa maanta soo baxay la leeyahay no waa inaad qur-aanka akhrido every day every month every year markaasuu ilaahay ku fahansiinaya markaasaad fahmaysaa markaasaa u darastaad fahmaysaa
markaad ku noqnoqotaad fahmaysa acmaashii kale la xidhiidhana aad la timaado markaa qur-aanka fahankiisu mid ku xidhan maaha jaamacado sidaa ula socda nuurka ilaahayna mid jaamacada ku xidhan maaha nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam jaamacado kamuu soo bixin jaamacado kamuu soo bixin waxyaalo maanta sayintiisku ayna sheegin oo ilaa maanta ay ku dawaqsan yihiinna nebi maxamed waa ogaa waana ka warramay waxyaaluhuu soo arkayna cid aragtay ma jirto xitaa kuwa dayaxa tegey may arag halka ugu dambaysuu tegey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidratulmuntaha waxaayna cidbaba arag buu arkay markaan usoo noqdo barnaamijkii haddaba aan kaga sheekeynaynay qabiilka waa fari xasaasi waxaan dul istaagayaa marka koowaad suuratulkahfi suuratulkahfi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga sheekeeyey 2 nin labadaa nin ee ilaahay uu kaga sheekeeyey aayadda 22 ilaa iyo 44 aayadda 44 ee suuratulkahfi qisadaasi waa very cajiib aad bayna u khusaysaa samano aakhirka iyo waxyaalaha dhacaya ilaahay markaa wuxuu nooga sheekeeyey 2 nin oo ilaahay beer uu siiyey wadrib lahum mathalan rajulayni jacalnaa liixdaahimaa jannatayn waxaa uga sheekaysaa nebi maxamedow 2 nin oo mid ka mid a aynu siinay 2 beerood labadaa beerood oo ma garanaysaay 2 webiyo dhex marayaan oo timir ku wareegsan tahay oo mudhihiina uu u baxay geed walba nooc walba uu meesha uga baxay oona bestis ka gelin oona carriguur ku dhicin oona nafaqadarra ku dhicin ya oo the optimum condition ugu baxaysay ninkaan ayaa isagoo saaxiibkii ay isla socdaan ay isla sheekaysanayaan buu saaxiibkii ku yidhi anigu laandheeraan ahay buu ku yidhi ya anigu laandheere ayaan ahay waanan kaa lacag badana adu maxaa tahay laangaab baa tahay waxna ma haysid awowgaana waxba ma soo hayn reerkiinuna waxa ma hayo aniguna ninkaasaan ahay ballaadhan durriyaddaa ballaadhan ilaahay baa noo duceeyey waana barwaaqeeyey sheekh hebel ducadiisii baa nagu dhacday halkaasuu mariyey sheeko dheer oo khuraafaa halkaas markuu mariyey kadibna beertiisii baa galayoo markaasuu waxuu yidhi maa adunnu an tabiida haadihi abadaa beerahani wallahina dhammaanayn buuri wallaahi bilaahi xukunkan maanta aan qabannay wallahi onan inu ka degayn midaan ka degayno wallahina u muuqan walle iyo bilay annagoo unbaa xukumayna caalamka annagoo unbaa xukumayna soomaaliya annagoo unbaa xukumayna waa halkaasay mariyeen waxaasi maalin walba waad aragtaan waa dhacaan haddana wuu socdo markaas wuxuu yidhi saacadda la sheegayaba mid dhacaysa u malayn maayo buuri mid dhacaysa inay tahay u malayn maayo haye haddii ilaahay la iiba celiyana buuri oyba dhacdaba la ajidanna khayran minhaa munqaliba yah kuwan maanta aan hayo wax ka fiican baaban helayaa because dee ducadii baaba annaga nagu dhacdo oo ilaahay baa u reerina jecel oo na barakeeyey soo maa maadaama un durriyaddii nahay dee haddaaban noqonno dee intan in ka fiican baanu helilaynaa soo maa adigu dee laangaabnimo iyo fakrigan waxa kugu wacayso ilaahay baa ku dhacay soo maaha bilaa ducaa tahay cid kuu ducaysay ducadeed ma qabtid inkaar baa adiga kugu dhacday marka daama inkaar kugu dhacday ilaahayna waa ku necab yahay maadaama ilaahay ku necab yahayna dee aakhire markaad tagtana waxba ma helaysid annaga unbaa kaa khatarsanaan halkana annaga unbaa boqorra ku ah halkaana annaga unbaa boqorra ku noqonayna arrimahaasi waa meliyaan maalin walba waa dhacaan saddexdaa haddaba markuu yidhi
isdaba dhigay ayaa ninkii saaxiibkiiba wuxuu ku yidhi warneeho ma ilaahii camuudda kaa sameeyey ee haddana qandhuufta kaa sameeyey ee haddana ninka kaa yeelay miyaad ku gaaloobaysaa buu ku yidhi ma garanaysa warneeho aniga waa ilaahaygiyo anigu ilaahay u shirig yeeli maayo buuri halkaa su-aal baa inoo taagan fartaan taaganayna halkaa fartaan taaganayna waxa weeye shirkiga uu ninka saaxiibkii ka hadlay waa shirki maxaya ninkan 3 shay baan ku haynaa soo faar waxaan ku haynaa ninkan inuu u faano yidhi waa anaa laandheeraa anaa kaa lacag badan kadibna inuu beertiisii soo galo yidhi beertan inay dhammaanaysaba u malayn maayo ama annaga unbaa weli wax xukumi doonna whatever case aad u qaado ugu dambayntiina in uu yidhi ma garanaysaa wanow saacaddu inay dhacaysaba u malayn maayo hadday dhacdana anu unbaa gacan sarrayn doona oo inta ninka fiican baan heli doonaa buu yidhi sanadyo caabudayey meeshaa inoogama muuqato waxbaa meesha u yaalyaalay inooma muuqato shirkiga foomkiisa koowaadna waxaanu ognahay in uu yahay sanabaan iyo waxyaalo muuqda oo ilaahay lala caabudo oo loo shirig yeelayo markaa what kind of shirki buu ku jiray waan usoo noqonaynaa markaa wuxuu ku yidhi markaa saaxiibkii isagoo hadalkiisa wata warneew beerahaaga markaad geshid maad tiraahid maa shaa allah laa xawla ilaa billah laa xawla maa shaa allah laa quwata ilaa billah maad tiraahid buu ku yidhi aad iska subxaanalaysatid alxamdulilah maad tiraahid beerahana aad aragtayna ilaahay waa karaa inuu waxaan oo dhan kaa baabi'iyo anigana waa karaa inuu intaa in ka badan isiiyo arrintii markaa cawaaqibteedii buu ilaahay noo sheegayaa markaa un lama kala hufin oo lama dhammayn labadii nin qisadoodii markay intaa is yidhaahdeen waxaa ku kala dambeysay aakhirkii allahu yaclam inta sannadoodee u dhaxaysay laakiin waxay u muuqataa inayna markiiba haf iyo haf hayn muddo macnaha caaqibada dhammaadkii aakhirkii waxay ku dambeysay ninkii inaa beerihiisiina la baabi'iyo ninkanna beero kuwii ka fiican uu helo markay beerihii ka baaba'een ayaa ilaahay ninkii ka sheekaynayaa waagii dambe markaasuu wa asbaxa yuqallibu kafeey isagoo gacmaha rogrogayo calaa maa anfaqa fiiha wixii kaga baxay ma garanaysaa tacab iyo ma garanaysaa hawl ka galay isaga oo ma garanaysaa ka yaaban ayaa ninkiibaa haddana wuxuu dib yidhi yaa laytanii liman ushriku birabbii axada hooggeyga maxaan ilaahay ugu shirig yeelay halkaana waxaan haynaa ninkii saaxiibkii inuuna nabayn baa inoo soo baxaysa ninkiibaaba qiranayaba inuu ilaahay u shirig yeelay saaxiibkii ma nabayn markaa okay markaa haddaad odhan lahayd markaan iminka qisadan dhammayno war waxaanaad samaynayso waa shirki markaan ku idhaahdo inaan ku nabayo haddaad u qaadan lahayd taa kalaa ku qabanaysa ma la socotaa ninkiibaa qiray markii dambe inuu shirki ku jiro halkaa markaa marayso ilaahay subxaana wa tacaala markaa wuxuu inoo sheegay ninkii laandheerannimadii iyo wixii uu ku faanayey inay waxba u qaban waayeen ilaahay askartiisa qarsoonna cid uga gargaarta uu waayey ilaahay walaayada markaa wuxuu yidhi isagaa iskale ciddaan doonana anaa siinaya halkaa haddaba sheeka markay noo taagantahay ee qisadii halkaa ku dhammaynay qisadii halkaa inoogu dhammaanayso waxaanu noqonaynaa markaa taariikhda awalu samaan markaan leeahay kama sheekaynayo bilowgii adduunka waxaan ka sheekaynayaa bilowgii taariikhda bini aadanka markaa waxaan ku noqonaynaa aabbaheen markii la abuuray nebi aadam calayhi salaatu wassalaam markii la abuuray aabbaheen aadan ayaa waxaa dhacday ma garanaysaa ibliis iyo malaa'igtii oo dhan waxaa lagu yidhi salaama oo u sujuuda nebi aadan ibliis markaa wuxuu ku jawaabay ma salaamayo nebi aadan oo uma sujuudayo ma salaamayo oo waxaanan u salaamay buu yidhi ma garanaysaa anaa khayrun minhu anigaa ka khatarsan
khalaqtanii min diinin khalaqtanii min naarin naar baad ani iga abuurtay wa khalaqtahu min diin isagana waxaa ka abuurtay dhoobo buu ku dooday doodiisii macnaha isaga maatar baad ka samaysay anigana energy baad iga samaysay iyo electromagnetic waves oo energya it could be markaa dee anaa ka fiican arrintu markaa haddaba halkaa marayso ilaahay wuxuu ku yidhi ninkii ibliis halkan inaad isku weynayso kuma ahaanin ka daadeg sidii buu ibliis ku gaaloobay dembi kaluu ibliis galay oo uu ilaahay ka galay ma jirto oonan kaa hayn kaa isla weynidaa iyo faankaa uu qabsaday aan hayn qisadan buu haddana ilaahay suuratlkahfi inooga sheekaynaya suuratlkahfi waa suuradda samanu aakhirka sheekadaasuu ilaahay ka sheekaynayaa samanu aakhirka waxaa soo baxaya in yaajuuj iyo maajuuj ay caalamka keenayaan inay ku faanaan rays ilaahay wa min aayaati illaahi ilaahay wuxuu qadaray kuwii yaajuuj iyo maajuuj sheeganayay aynu soo helnay inay noqdaan oo laga soo helayo dadka maanta caalamka ugu qorquruxda badan leh ee indhaha qururadda aleh ee indhaha dahabkaa leh inay kuwaa yaajuuj iyo maajuuj ku dhex jiraan waxay kuu caddaynaysaa waa min aayaati illah waay adigu waxaad iska soo qaadaa haddii aad arday tahay oo ma garanaysaay adna macallin aad tahay macallin markaad tahay ardaygaaga markaad maalin walba usoo dhigto marka dambe imtixaan baad ka qaadaysaa imtixaanka aad ka qaadayso wixii uu soo dhigtay oo sidoodiiyo un dee su-aalahaagi ka dhigi mayside su-aalo yaroo dahsoon baad u tabinay ninkii ardayga ahaa si bal aad u tijaabiso waxyaalihii uu fahmay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna leeyihi ma bili-aadanow gaar ahaan isagoo macal dadka ilaahay baan rumaynay la hadlaya ma waxaad u malayseen inaad tidhaahdaan ilaahay baan rumaynay fatutrakuun oo sidaa laydinku daynaya may itixaan baa idinka qaadayaa itixaan baa idinka qaadayaa buu ilaahay yidhi bini-aadamkana saasuu la hadlay ilaahay itixaankii markaa waxa weeye haddii aynu raacno xitaa yaajuuj oo maajuuj waa dad gaagaaban oo madaxyo waaweyn oo xoog waaweyn oo folfol xunoo hadday saa yihiin dee ciyaalkaaba ka ooyaye ilmaha yara dhashay muna ka ooye ilmaha yara dhashay baaba garanayaba waa ka ooye say u noqon karaan markaa wa min aayaati illaah waxay noqdeen si laguu dago ood u daganto inay dadka caalamka ugu qurquruxda badan leh ee maanta hablaheennila ku dayanayaan ay dawooyinka usoo iibsadaan ay isku ekeysiyaan inay iyagiiba noqdaan markaa ina meesha imtixaan ku jiro si confusion kuu galo because waxaad aaminsan tahay ninkan inuu kaa fiican yahay soo maa dad badan baaba u quuri laba waaya juuj because they are too good bay leeyihiin to be true yaa ama waa aad bay waa dad fiican oo wallahi qurux badan yaa haye halkaasaan kaga joojinayaa bismillahi raxmaan raxiim waxaan soo noqonayaa ma garanaysaa barnaamijkeenna halkaa haddaba markaan marayo waxaad arkaysaa faanka lagu faanayo qabiilka nationality-ga rayska iyo ethnicity-ga in uu yahay dembi cadiim ah in aad gashay dembigii ibliis galay mid la mida wax alli iyo waxaad kaga duwan tahay hawa yaraatee ma jirto aniga iyo adiguba maalin walnaba waan soo galnay maxaa la yeelayaa markaa halkaa toobadii baa inoo taalla haddiise aan ka toobad keeni weyno waxaa hubaala inaynu hallownay intaad doonto madaxa foorfoorari waxba kaa shaqayn maayaan wax alliya wax kaa shaqaynaya male waayo waxaad ku jirtahay waa dembi caddaan ah waxaan usoo noqonaynaa suurat alxujuraat ilaahay subxaana wa tacaala
wuxuu ku leeyahay isagoo dadka ilaahay rumeeyey ee iimaanka laga helay si gaara ula hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayrun minhum war dadka iimaanka laga helayo waar nin yuuna yase oo anaa kaa fiican uuna odhanin oona uu yaraysanin oo anaa qabiil hebeloo annagu qoom hebel haddaan nahay qabiil hebel baan naho idinku qabiil hebel baa tihiin oo waxba ma tihiin ha odhanina oo sida yuhuudda ha u dhaqmina oo sida ma garanaysay yaajuuj maajuuj ha u dhaqmina oo sida ma garanaysay hinduusamka ha u dhaqmina waar dad aan diin siiye baa tihiin dad aan nuur siiye baa tihiin war isla weynida iyo qabka ha u ka baxa war sidii ibliis aabbihiin uu u dagay iyuuna idiin dagin waar dembigii ibliis galay waar ha gelina buu ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay markaa haddana wuxuu yidhi walaa nisaa'un min nisaa'in waar dumarkow haweenow idinkuna saa ha samaynina waxaa laga yaabaa qof kan dhan eed iska weynaysiinayso eed leedahay waan ka khatarsana ee waan ka fiicana ee waan ka ad leedahay iyo ducaa igu dhacday iyo kabaa igu dhacday inuuba kaa fiican yahay xaqiiqduna waxay taallaa suuratulkahf labadii nin waxaa soo baxday ninna inuu nidda ilaahiisa ku xidhan u ahaa adduuniya aakhiraba ninna inuu ahaa nin hadlaysan oo dalanteedka adduunka uu qaaday ilaahay meel kale waxay lagu leeyahay isla suuratulkahf maalka ma garanaysaa iyo waxaanoo dhanba inay ziinatulxayaati uldunya ay tahay marka nimanka u haysta inay duca iyo ma garanaysaa sheekh kowneyn iyo ay ka timid waxaas wax socda maaha waa intaa waa fidno caruurta maalka waxaasoo dhan waa fidno weeye itixaan baa ku hoos jira itixaankaa ninkii baaso uun bayna u tahay nimcad kii kale waa hoog iyo halaag iyo ba bay u tahay ilaahayna kuwa itixaankaa baasa dhammaanteen haynaga dhigo qofkii dembi inuu ku jiro gartana sida ugu dhaqsaha badan hauga soo noqdo qabiilka lagu faanayo iyo sheekooyinka yaajuuj ee maajuuj ina dhex dhigeen ee inaguna aan bractice garaynayno ee aan garanaysaay maalin walba kaga dayrayno sheekayna anfacaysa maaha ilaahay markaa isagoo halkaa aayadda suuratu xujuraad ku jirta aan sii wadayo wuxuu ku daray waar hayscaayina meelaha qaarkood maanta markaad baxda cayda dhacaysa rag baa b h d u haysta cayda b h d baa loo haystaa and believe me kabahay kaaga saarayaan ilaah baan ku dhaartay kabahaad ka ordi sida bahasha ay kuugu wadaan ilaahay ha laga cabsado arrimahaasi qofka ku jiraayey inuu kabaha ogsoonaado inaad dembi weyn oo caliimba ku jirto aan ku odhan maayo dembi yaroo saqiiraad ku jirtaa iyo mine iyo kuma fadboonayo laakiin waxaan ka hadlayaa waxaa blanka ee qur-aanka caddaankaa ku jira dembigii ibliis galay baad ku jirtaa waxaa kaloo ilaahay uu yidhi ma garanaysaay ha isugu yeedhina magacaanta xunxun oo naanaysaha xunxun ee isugu yeedhaysaan daaya arrintaasi waxay aada ugu badan tahay dadka islaamka sheegta magacaantan la iskugu yeedhayo naanaysahan xunxun iyo sida aadka u xun dhammaan waddamada islaamka sheegta unbaa laga soo helaya waddamada kale xoogaa waa qarqarsadaan si iyadoo cad lagulaba ima mabaayo laakiin dhulkeenna iyadoo badrheedh caddaana waxaan leenahayna islaam baan nahay islaam baan nahay ma shaqaynaysaa markaa ilaahay ha u soo noqonno islaamnimada hayna laga arko islaamnimada waxaa fiican inayna laga arko oo dhammaanteen aan muujinno moogta
ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka sheekeynaya haddana isla suuratu alxujuraat waxaa qabiilku uu yahay ayaa wuxuu yidhi war bini aadanow waxaan idinka abuurnoo idiin abuurnay lab iyo dhadig ilaahay halkaas caddayn kale ku jirto transgender baa jira ilaahay ma odhan ilaahay isagaa wax walba abuuray dad genetic abnormalities ku dhashaa way jiraan dad ma garanaysaay labadii reproductive organiskii rag iyo dumarkuba lahaa jirhkooga ku wada jiraan way jiraan laakiin there is not excuse inaad gender cusub samayso waa gaalnimo gender cusub inaad samayso oo keento oo group saddexaad aad keento ma shaqaynayso arrintaa ilaahay subxaana wa tacaala waa diiday lab iyo dhadig baan idiin abuuray buuhi wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila groupyo iyo meelaha idiin kala samaynay of course ha native ma garanaysaa reer indian baa halkaa ku noolaan jiray qaar madmadow baa dhinaca ku nool qaar kaloo carabaan halkaa ku noolaysiinay qaar chinesaan halkaa gelaynay qaar ma garanaysaa caddaanaan halkan kala geynay sidaasaan idin kala abuurnay there's nothing wrong with it and that's it si aa isu garataan laba intaasoo keliya laakiin si aa isku faantaan lama odhan arrintaa waxaa keenay yaajuuj iyo maajuuj baa keenay in la isku faano yaajuuj iyo maajuuj baa keenay caalamkiinan maanta aan joognaan ka hadlayaa nin kastoo faanana wixii ku dhacay waa la ogaa fircoonna wixii ku dhacay waa la ogyahay arrintaa maalinta yaajuuj iyo maajuuj keenayeen ee caalamka fidmada gelinayeen ilaahay subxaana wa tacaala calaamadihii uu sameeyey miyaad ogtihiin horta markii ay janeefa switzerland magaalada basil la yidhaahdo markay ku shirayeen yaajuuj iyo maajuuj ay lahaayeen ma garanaysaa in nimanka sionistigii 50 sano kadib waa inaanu dowladda israa'iil la yidhaahdo helno markaa ay shirayeen isla 10 sano ka hor waktigaa shirka ay qabanayaan intayna qabanin 10 sano ka hor ilaahay wuxuu ifka u soo saaray meydkii fircoon samad ula socotiin horta intaa ka hor oo dhan dee faraaciintii ka horreysay qaar ka mida waa la helay laakiin meydkii fircoon dee ramsiis 2 baan u malaynayaa inuu ahaa meydkiisii oo la xaqiijiyey in uu bad ku dhintay oo biyo dhanaan inuu ku dhintay la xaqiijiyey lana xaqiijinayo inuu yahay fircoonkii markaa qur-aanku sheegay ninkaas buu ilaahay 10 sano ka hor meelaha ilaa 8 isla waqtigaa uun 1880kii iyo dhowr baa ninkaa la helay nin faransiisaa soo helay mana haddee taariikhda caalamka si fiican uma akhrino ilaahay wuxuu u digayey nimankan sidii fircoon inay caalamka dadka iska weynaysiyaan qaarna gumaystaan qaarna ay daayaan raba nimankaasaa la lahaa haddaad ka joogi weydaan wallaahu bilaahi taasaa idin dambaysa nimankaasaa gaar loola hadlayay nimanka aayad baan ilaahay fircoon kaaga dhigayaa markuu lahaa caalamkao dhan ilaahay ma jeeda nimanka la jeedee loo socday nimankaasay ahayd uu ilaahay la hadlayay subxaana wa tacaala nimankaasaan calaamad kaaga dhigayaa u joog nimanka la yidhi fircoonow ku baabiin maayo nimankaa niman soo socdoon ogahay baan calaamad kaaga dhigayaa si bal haddii inta iyada ka midi ilan yaajuuj oo maajuuj ma soo islaami karaan cidimo odhan way soo islaami karaan xaqa way garan karaan inta iyaga ka midi ma garanaysaay bal wax kala garanaysay si ay wax u kala garato ayaan calaamad uga dhigayaa ilaahay saasuu u soo saaray fircoon waayo maxaa ku soo beegay isweydii coincidence baa iska soo baxay waa la iska helay uun maxaa loo heli waayey dee awalba baa meesha taala waxyaalo badan isweydii oo fikira markaa waxaa kuu soo baxaysa arrimahan yaajuuj iyo maajuuj caalamka walaalayaal ay ka wadaan ee soomaalidana lagu fidneeyey ee maalin walba qabiilka laysku haysto ee dhammaantoon ku dhex milannay ee nin walba uu rabo derajo gaara inuu yeesho meel gaara inuu maamusho wax shaqaynaya maaha wax shaqaynaya maaha nin walba wuxuu rabaa kitaab yaroo gaara oo bog ah
dastuur bug ah oo ilaahay aad kaga hor imanayso dastuuradan caalamka ka jiro oo dhan waa bug iyo brobagando caalamkan caalamaantan bugta ee brobagandada ka jirta waxa leeyahay wax ka shaqaynaya male dhammaantoodna waxaa keenay nimanka garanaysa yajuujo maajuujo ilmanaatigi ayaa keenay ee reer galbeedka idinkuna waxaan u wada haysanaa wax inaga yimid inay tahay markaasaan welibana dhiig u daadinay markaasaan welibana habeen iyo maalin waxaan kala kama sheekaynayno xan iyo waxaan ka sheekaynaynaa taa waxaanan leenahay waana shahaadanaynaa dad islaamaan nahay baan leenahay anoo arrimahaasi inay naga shaqaynayaan u malayn maayo imtixaankaasina in la beri hore ku fiilgarowdhay bay u muuqataa qur-aankiina macal asaf waan fahmi weynay waxyaalo badan oo horteenna yaalyaalla saasay u muuqdaan markaa ninka ku sii dhegayee og ee samaynayaay waxa weeye dembi cadiimaad ku jirtaa and you have no excuse ninkaa og ee marka sidaa lagugu sheegad saa u garato sii wata waa no comment wey no comment I have no comment muhiimad waxa weeye markaa nimankan dadka kala googoynaya ee danahooga ku gaadhaya ee jeebadahooga ku buuxsanaya ee adoo iska gaajoonaya halkaa ma garanaysaa ee dembiga lagu gelinayo war maxaa dembi ku gashay london baad iska fadhidaa amba waxaad iska fadhidaa ma garanaysaa ee hargeysaad iska fadhidaa nin muqdisho jooga dembi u galaysaa war qabriga masagaa kula gelaya waa maya wuxuu qaata ma waxbuu kaa siiyaa war maya war diintaada iyo naftaada keligaa baa lagu xisaabinayaa nin aanay waxba kaa soo galayn ha u sheegin isagana ha seejinin oo wax aan jirin ha u samaynin yuuna ku dagmine barnaamij lamida intaaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa fii amaan illah